subscribe to our channel like tan nagu dhiirigeli inta lacag kama gadno Proud Media oo adeegaha bulshada waxa idin soo gudbin doona warar ku saleysan xaqiiqo bogaadinaya dhammaan marti sharafta kala duwan ee kulankan muhiimka ah maanta ay nagala soo qayb gashay mudanayaal iyo marwooyin shirkan waxa uu muhiim u yahay geedi socodka nabadda iyo dawlad dhiska Soomaaliya gaar ahaan dadaalada ku saabsan xasilinta iyo dib u xoreynta dalka waasoo kamid ah howlaha hortaminta u ah xukuumadda dan qaran si nabad iyo dawladnimo loogu soo dabaalo deegaanada ay dawladdu dib ula wareegtay iyadoo la gaarsiinayo adeegyada dawladda oo ay dadku u baahan yihiin dawladii ma sii jiri karto haddii aysan kasban shacabkeeda bal waxaa la dhahaa xasilintu waa kasbashada laabta dadka waxa ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan qorshaha iyo haykalka cusub in uu gaarsiiyo sidii ay dawladdu ugu dhaweyn lahayd dadka loona qaadi lahaa caqabadaha muuqda iyo kuwa aan muuqan ee khawaarijtu ay u dhigtaan in dadka iyo dawladduba isku xirmaan si loo gaaro nabad iyo horumar loo dhan yahay waxaan maanta halkaan u fadhinaa in aan daahfurno hawl muddo soo socotay oo ah in howlaha xasilinta ee dalka ka socda loo yeelo hannaan iyo haykal haga shaqada iyo isku xirka shaqo aan lahayn hannaan isku xira oo cad laguma guul gaari karo sidaa darteed waxay xukuumaddu si wada jir ah uga shaqaynaysay in la sameeyo haykal iyo hannaan loo raaco dadaalada xasilinta waxaan rajaynayaa in wixii maanta ka bilowda uu hannaankani noqon doono mid si wada jira aan iskula qaadanno una taabagelinno haddii aan leydno waxaan sidoo kale filayaa in wixii laga bilaabo maantay aan u soo jeesan doonno dadaalkeennana isugu geyn doonno waxqabad dhab ah oo muuqda raadna ku reeba deegaanada la bartilmaameedsanayo iyo bulshada ku nool sidaa darteed hadda wixii ka dambeeya waxaan isugu imaanaynaa maxaa noo qabsoomay iyo horumar intee leeg ayaan gaarnay waxaan rabaa arrimaha qorsheynta iyo qaabeynta in aan ka gudubno oo aan u gudubno gudagalno shaqooyinka dhabta ah annagoo dardargelinayna howlaha baaxadda leh eena hor yaalla taas macnaheedu ma ahan inaan shaqo socon howlo badan ayaa la qabtay muddadii sanadka ahayd aad ayaa loo dadaalay inta yar oo dadku hadda ay ku dhaqdhaqaaqayaanna muddadaa sanadkaa waa la qabtay howlahaas qaar waa la qabtay qaarna waa qorshaysan yihiin laakiin howlaha la qabtay iyo baahiyada taagani iskuma dhigmaan anigoo halkaas markaan taaganahay rabaa inaan u mahadceliyo dowladihii iyo hay-adihii nagala shaqeeyey arrinta xasilinta muddadii lasoo dhaafay oo igu horeyso dowladda Mareykanka hay-adda USAID iyo hay-adihii fulinayay oo DT Global iyo TIS Plus iyo sidoo kale UK dowladda UK oo iyaduna shaqo fiican aan wada qabanay oo early recovery programka sidoo kale dowladda Norway oo runtii hay-adda NIS oo raacsan iyaduna si wanaagsan bay shaqo fiican oo la qabteen waxaan rabaa inaan bogaadiyo EU oo gadaal ayaan dhaweeto aan daahfurnay program xasilinta ku saabsan oo qorshaysan oo wax la qabanayana ay cad yihiin iyaduna waxay runtii ku sii dartay dadaaladii socday wax weyn bay ku dartay mudane ra'iisul wasaare 2 maalmood ka hor waxaa magaalada Kismaayo nagu soo dhamaaday shir muhiim ah oo hordhac u ahaa shirkan aan maanta halkaan u fadhino oo ay dhammaan dawlad goboleedyadu qayb ka ahaayeen kulanka waxaa hoosta looga xariiqay in aanan howlaha xasilinta laga miro dhalin karin haddii aan si wada jira looga wada shaqaynin dadaalada xasilinta waxaa la isku weydaarsaday khibradaha iyo waayo-aragnimada galmudug iyo hirshabeelle xasilintii ka socotay sidaasoo si la eg dowladaha koonfur galbeed iyo Jubbaland waxay ka kororsadeen caqabadihii muddadii sanadka ahaa meelahaas lagala kulmay inaysan soo noqon iyadana waxay kaloo dowlad goboleedyadu soo jeediyeen in la sameeyo
sanduuqa xasilinta kaasoo ay dowladda iyo saaxiibadeeda caalamka ku yaboohaan dhaqaale lagu hirgeliyo qorshayaasha xasilinta ee deegaanada dowladdu dib ula wareegtay. mudan ra-iisul wasaare kulankaasoo ahaa mid miro dhala wuxuu u gogol xaarayay in haykal iyo hanaanka cusub ee aan maantii soo bandhigayno uu helo golayaal u diyaar ah in ay taabageliyaan. sidaa darteed dowlad goboleedka Jubbaland waxaan ku soo aragnay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha in ay diyaarisay ahmiyaddeeda ku aadan howlaha xasilinta. sidaasoo ay kalena ayaan waxaan ka codsanay dowlad goboleedyadu inay samaystaan hal qorshe oo dhammaantood u dhan yihiin laguna soo ururiyo wasaaradda arrimaha gudaha. tani waxay soo afmeeraysaa isbarbaryaacii baahsanaa ee ka jiray hay'adaha dowladda ee ka shaqeeya xasilinta. waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gunaanado marka aan rabno in aan taabagelino howlaha xasilinta waxaa muhiim ah inaan maanka ku hayno 3 arrimood. arrinta koowaad waa degdeg adeeg degdega. howlaha xasilinta waa in loo hirgelin karaa sida ugu dhaqsaha badan maadaama dad baahiyo biyo la'aan iyo raashin la'aan iyo dhibaato badan meelaha dagaaladu ay ka dhacaan ay dadku la kulmaan inuu degdeg noqdo. number 2 xajmiga kor u qaadidda scale up waa inay suurtagal noqon karto in meel inta laga fuliyo howlaha xasilinta haddana meelo badan oo kale laga sii fulin karo oo aysan dadaaladu ku ekaan oo keliya hal magaalo ama dhowr magaalo laakiin dhammaan ay gaartaa degmooyinka tuulooyinka ay ka kooban tahay kadibna ay soo gudubtaa deegaanada kale. 3 heshiis bulsho social contract. dadaalada xasilintu waa inay ugu dambeyn noo horseedaan in bulshadu ay wada jirto is aqbasho nabad ku wada noolaato ayaheedana si siman ugu wada tashato. waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo hay'adaha iyo deeq-bixiyaasha mar kasta nagu garab taagan howlaha xasilinta oo ah kuwa ugu muhiimsan xukuumaddan. waxaana sidoo kale u mahad celinayaa wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada oo soo ajiibay martiqaadka aan u dirnay kulankan iyo kii ka horreeyay ee Kismaayo ka dhacay ayagoo ka soo tegay shaqooyin muhiim ah kuna baraarugsan ahmiyadda uu kulankani leeyahay iyo siday qayb mug leh uga qaadan lahaayeen hirgelinta natiijada. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan xafiiska prime ministerka u mahad celiyo oo runtii ahmiyadda ay leedahay hawshani dareemay isla markaasna xajmi weyn siiyey sidii xasilintu ay u meel mari lahayd iyadoo ka xooggan tii hore. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.